maanta waxaa nooga qabsoomay halkan shir runtii muhiimadiisa leh maanta waxay maalin u soo hoyato gool ah horumarka Soomaaliya waxaa nooga furmay maanta magaalada Muqdisho hangarka kiyaala xalane shirweyne mideeyay isku keenay ganacsiyada Talyaaniga kuwa Soomaaliya shir waxaa ka furmay maanta loogu magac daray isbuuca ganacsiga halaha Talyaaniga Soomaaliya runtii shir wuxuu ahaa mugiisa leh ganacsatada Soomaaliyeed oo soo qayb galeen ilaa 200 company baa timid oo Soomaali ah ilaa 30 ku dhaw Talyaaniga ayuuna joogay shirweynahan insha Allah waxaan rajaynaynaa in wadankeena u soo jiido iskaashi ballaaran waxaad ogtihiin in wadanka wadadii wanaagsaneed cagta saaray waxaan u baahanahay aqoon waxaan u baahanahay maalgelin ganacsiyada Soomaaliyeedna maanta halkan wax ka muujiyeen inay diyaar u yihiin inay la partner garoobaan dhigooda Talyaaniga iyadoo naga go'antay in wadanka hor loo wado waxaan rajaynayaa labada maalmood oo soo socota in ay ka dhici doono heshiisyo fara badan iyo safgarad badan ka dhici doono loojeedka laga lahaa waa in wadankeena jidka uu qaaday uu hor uga sii socdo wuxuu dirayaa message culus shirkani oo runtii ah in Soomaaliya ay hor u dhaqaaqday si gadaal u laabaneen IBS Bank oo runtii ah qabanqaabiyaha asagoo partner la ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed qabanqaabiyaha shirkan buu ahaa runtii waxa noo muuqata in hadafkii laga lahaa shirkan si mug miisaan leh uu u ajiif gareeyay ama looga gaaray waxaan u rajaynayaa Soomaaliya horumar barwaaqo nabad iyo inay gaarto meel aad wanaagsan ama santii